الله كاهي كأنار الله إن الله كاهي كعسي الناق الله إن الله كاهي اللهم صل على سيدنا shalay galinkii dambe ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada xukuumadda cusub waxaana ku soo laabtay oo mar kale noqday wasiiro xubno kamid ah xukuumadii hore sidoo kale golaha wasiirada ayaa waxa kamid noqday shakhsiyaad hadalhayntoodu horay loo hayay oo kamid yahay Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur iyo shakhsiyaad kale oo saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya xubnaha golaha wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku dhawaaqay ayaa gaaraya 26 mudane halka sidoo kale aad ay u badan yihiin wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dawlayaasha haddaba qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaan fikirkooda wax ka weydiinay sida u arkaan xubnaha golaha wasiirada uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre xilli ay la hadleen warfidiyeenka radio Gaalkacyana waxay yiraahdeen aad baan u soo dhaweynaynaa xukuumadda cusub ee dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse waxa loo baahan yahay dhammaan Soomaalidu in aan la dhaleelin wax kasta oo yimaado in laga warsugo oo aan lagu degdegin xaleeyay Soomaali waxay u baahan tahay midnimo iyo walaalnimo inay gacmaha isqabsato oo midowdo bay u baahan tahay meel kasta ay joogaan annaga ka shacabka reer Puntland ahaan aad baan u soo dhaweynaynaa because waxa way dad Soomaalinimada iyo dawladnimada jecel baan nahay waxaan leenahay dawlad dalka iyo dadka badeeqda oo aan xasaasiyad wadan inay noqotaan rajaynayna insha Allah xubnaha la magacaabana dad baan ka naqaana waa dad u qalma inay dadka hogaamiyaan aad baa u mahadsantihiin wasiirka diinta Soomaaliya waxa laga dhigay Mukhtaar Roobo waa soo dhaweynayaa waxaan u soo dhaweynayaa waxa waaye Soomaaliya taariikh dib loo hadii loo raaco madaxweyne Sheekh Shariif waanu hadda halka aan waxba aan ka sheegin madaxweyne Soomaaliyeed noqday Soomaaliya asoo mujaahidiinta hogaaminayo madaxweyne ka noqday marka qofka Soomaaliyeed maalinna waxa waaye shaarku doonu gashan kara laakiin Soomaalinimada ka weyn wasaare Xamse Barre wallahi wuu dadaalay ma sha Allah horta maadaama waqtigu wuxuu ka dahay dib ma leh hada wuu dadaalay wasiirada uu soo magacaabay ma sha Allah soo dhaweynaa waxa leenahay soo dhawaad wasiirada cusub golaha wasiirada cusub waxa ku jira wasiiro soo shaqeeyay xilal kala duwan laakiin loo dhiibay kuwii hore u hayeen aan ahayn sida kula muuqata kuwa marka soo laabtay wallahi horta wasiirada hore soo shaqeeyay dawladda hore ka soo shaqeeyay iyo dawladda kala badan ka soo shaqeeyay hadii ahaad Xasan Sheekh Maxamuud iyo hormaajada dawladda soo shaqeeyay baa jiro haddana dib loo magacaabay baa jira wasiiradaas waxay la tahay dawaaga hore horta in macni shaqadoodu macni oo gaabis ku jiray waxaan rajaynayaa isbedel ku yimaado shaqada sidii macni waaga hore qabtay mid ka wanaagsan qabtaan baan rajaynayaa wasiirada cusub oo hadda macni ku soo biiray wasaaradana waxaan leeyahay shaqadina hal arko si fiican u shaqeeyo dadka u shaqeeyaan laha wallahi horta wasiirka aan wasiir dawladda diiday xilkaas waan u jeeday wasiirka wuxuu ilowsanaa inuu macna in leeyihiin gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya in leeyihiin ay haystaan boos ku fadhiyaan buu ilowsanaa ma u maleynaya marka aniga ee muuqato macna wuxuu diiday wasiir buu rabaa gudoomiyaha baarlamaanka ma haystaan wallahi waa arin macna xogaa asagoo wasiirka macna fikriye la tahay maadaama uu haysto gudoomiyaha waxa la rabaa inuu ka dhaco wasiirka in loo magacaabo wasiir dawladda magacaabo xitaa uu diiday ma ahaynba Gaalkacyo waa in salaamaya iyo dhammaan muslimiinta oo dhan salaanka bacdi wasiirada la magacaabay waan u hambalyeeynayaa waa soo dhaweynayaa waa taageersanahay hadda waxaan leeyahay shaqo wanaagsan iyo maamul wanaagsan baan ka sugaynaa waxaan ugu baaqayaa wada shaqayn wanaagsan iyo inay si fiican u shaqeeyaan oo dawladda ay nabadgelyadeeda in la xasiliyaan ugu baaqaya anigu wax tilmaami maayo wasiirada dhammaan waa taageersanahay hawshiina wataan leeyahay kuwa hore iyo kuwa dambana kala tilmaami maayo nin walba aqligiisa iyo wuxuu qabaa kartidiisa iyo wax ku maamulhayaa shaqo wanaagsan baan hadda leeyahay shaqo wanaagsan waxaan u arkaa Mukhtaar Roobo arrintiisa arrinta dib baa ka taagnayd haddii xal la biday ayadaan ku taageersanay sida tan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo xabsi ah in wasiir laga dhigo sida kula muuqata waxay ila muuqataa si wanaagsan bay ila muuqataa wixii maslaxad ummadda u ah baa si wanaagsan igu muuqda xal baan u arkaa arrinta baaqay ugu dambeeyay waxa weeyaan waa inay hambalyeynaya Soomaali dhamaanteed shaqo wanaagsan iyo nabadgelyada laga shaqeeyaan ugu baaqay magacayga noo sabeero jaamac ay kula wasiirada cusub soo wartaa
waxaan u arkaa hortay inta meesha joogta 14 iyo boqolka quraanka cadadiisan ku salaamahayaa labaad ummadda meesha joogta iyo madaxda iyo magaciisa sagaalka hal oo karaahiyada oo kaafka ku taal Allah ka hayo kool aan wiil lahayn Allah ka hayo kaftan tool lahayn Allah ka hayo kub aan weesal lahayn Allah ka hayo kor aan daahir lahayn Allah ka hayo kalaan aan shahaado lahayn Allah ka hayo kiishaan lacag lahayn Allah ka hayo kor aan geel lahayn Allah ka hayo ka aan ari lahayn Allah ka hayo kacsi aan naag lahayn Allah ka hayo Allahumma salli ala sayyidina والسلام عليكم أنا رئيس حمزة عبد البر أنا waxaan qabaa inuu soo magacaabay golo wasiiro oo waqti ku haboonaad ku soo aaday taasna waxa ka garan karaa waqtigu la maqnaa waayo maxaa yeelay waqtiga loo turgalay marka xataa ku dhamaatay wax ku darsaday 10 cisho asoo barnaamijka ka codsaday dadku waxa la yiraahdo marka ugu horeysa wasiirada xalay baa la magacaabay waxa ay qaban doonaan iyo wax qabadkooda hal laga warsugo laakiin isla markaa ayaan mucaarad lagu bilaabin waxa la dawladdu waa cusub tahay madaxweynuhu waa cusub yahay ra'iisul waa cusub yahay waxa la yiraahdo wasiirada oo hadda magacaabay waxa muddo qoraahdii madaxweynaha oo ahayd Soomaali heshiisa caalamka heshiis la inay hadda bedeshay Soomaali heshiisa dhamaantii heshiisa marka waxa la yiraahdo dadku isoo u fiirin waxa la yiraahdo hebel baa la magacaabay iyo shakhsi iyo magaciisi laakiin waxa la wax qabadkooda laga warsugo nimankani كلي waxaan u maleynayaa wasiir baan rabay qofku wuxuu rabo iyo waxa aqoontiisu tahay isma laha waxaan u maleynayaa hadan shakhsiyaantayda hadan cabiro aqoontiidu soo lahayn kulaha wasiirada cusub waxaan ugu baaqayaa inay ummadda u shaqeeyaan dalka u shaqeeyaan dadka samata bixiyaan dalka abaar baa ka jira maanta Soomaaliya uma baahna waxa la yiraahdo mucaarad iyo waxa la yiraahdo kala soo horjeedi iyo xuquuq uma baahna waxa la madaxweynaha dawladda federaalka waxa la yiraahdo asaga laftiisa Xasan Sheekh Maxamuud laftiisa waxaan leenahay dalka iyo dadka si isugu wada lahaa laga rabaa dawlad goboleedyada waxa laga rabaa inay la shaqeeyaan madaxweynaha ra'iisul inay la shaqeeyaan su'aasha aad su'aasheen oo ku saabsan golaha wasiirada anagu waxa weeye aragtidayda waxaan ku cabirahayaa waxa weeye dadkan doorasho la galay doorashadaasna waa lagu tartamay waxaad ku ogaanaysaa ummaddu waxay u badatay isbedel madaxweynihii hore tartanku galay kii labaadna tartanku galay waxa batay kii dambe oo la doortay yaa ummadda codkeedu u badatay halka waxa ka muuqda ummaddu inay isbedel ay doonaysay ilaa aan ogaano wax aan ku diidno isbedelkii waa soo dhaweynaynaa dadkuna hadda anagu qof kastaaba wuxuu ka sameeysan yahay iyo wuxuu calooshiisu taa anagu ma naqaan ilaa aan ogaano qofkii khaldan dhammaan waa soo dhaweynaynaa waxaan ugu baaqaynaa ummadda horumar isgaarsiintii wixii laga ballamay gaar ahaan cod iyo qof abaaraha maanta Soomaaliya sida baan u haysta waxtar xalaal aan ugu baaqaynaa inay ku tilaabsadaan iyo cadaalad iyo sinaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambaleynaynaa soo dhaweyn u direynaa isbedelkii la qaatay in laga dhabeeyo qofkii shakhsi oo wasiiraho si khaldan ama lagu dareemo ama lagu soo baxana debartiisa lagu qabanaya intaasan kaga baxaya mutaar roobo anigu waa aqoon mali waa maqlaa كلي وحوي وحن كم مقلع إنه مر اللي يري الشباب بكتيري مرنا إن اللي يري والك دولة الصومالي سودي بي إنه يعني وحوي يعني وأنت أصلا كم مقلع لكن معروفة أنا لا ملا هذانا دين تعلم مقعبة الدين تونا شيء قف بدلي كرماه وواح ميل سكياله وحو بدلي كراه هذا تدك الصوماليات وكب بدلي كرنا أنا أعرف كده إذا متشد والسيرة لما راحوا عرقنا إن ذلك abaarti jiday mid ka daran inay tahay wasiir laga tashada maaha maamul goboleedyada lagama tashan dhaqankii lagama tashan deegaanada ka soo jeedaan lagama tashan waxa uu wasiiradana gaar laga leeyahay wasaaruhu cidna lama tashan qolka wuxuu ku jiray Xasan Maxamuud baa lagu qoray waxa la tashada ma laha hatta cid waxan baleysay ma jiraan wasiiradan maamul goboleedyadii dhaqankii dawladaha caalamka wasiirada cid waxan baleysay ma jiraan waxaan dhiilaynaa in casilaan
wasiiro cusub la soo doorto gobolada matala oo dalka ka mas'uul tabxiin kara abaaraha iyo shabaabka ku habsaday ana kuma jiro Mukhtaar Rabo waa shakhsi soo dambiga uu dalka ka galay Ilaah baa ku shuqul leh laakiin dalka in loo turo way munaasib waay waxa ugu baaqaysan ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada waxaan ku codsanaynaa inuu maamulada tago deegaanada tago gobolada tago dadka la tashado laakiin in fiila Soomaaliya ku jira wax la dad baa la tashaday la tashaday hal maamul gole ma tagin hal deegaan ma tagin waddanka abaaraha ka jira saxa Cabdi Maxamed xarunta gobolka Mudug Gaalkacyo kusoo dhawow waaheen farmashi aan supermarket oo ay kugu diyaar yihiin shaqaalaheegan u aqooncinta macaamiisha iyo adeegista bulshada khibradna ula shaqada ay qabanayaan waaheen farmashi waxa kugu diyaar qaybaha kala duwan ee daawooyinka sida daawooyinka neerfaha daawooyinka dhiikarka daawooyinka macaanka ama sonkorta daawooyinka infekshanka daawooyinka tiifooga iyo cago ololka daawooyinka caruurta isku kaadida iyo kaadi baxsadka daawooyinka lafa xanuunka iyo murqaha daawooyinka gaaska iyo calool istaaga sidoo kale waxa kugu diyaar fitamiinada qaybaheeda kala duwan sida abateedka hurdada dadka waaweyn iyo caruur sidoo kale waxa uu ku diyaariyay waaheen farmashi daawooyinka heerbalka ee loo isticmaalayo infekshanka ragga iyo dumarkaba iyo daawooyin fitamiinada oo loo isticmaalayo xalinta khilaafaadka qoyska daawooyinkaas oo laga keenay daafaha dunida waxa kale oo waaheen ku ballan qaadaya daawooyinka laga waayo dal sidoo kale qaybta supermarketka waxa kugu diyaara qaybaha kala duwan macmacaanka sida askrinta biskuudyada noocyada kala duwan sida Nutella timirta oo leh noocyo kala duwan sida cajwada waxa kale oo kugu diyaara waaheen supermarket malabyo saafiya oo Turki Sacuudi Carabiya iyo Soomaali malab waxa kale oo kugu diyaara noocyada caanaha sida caana ankar caana amis iyo caana xilwa iyo caana niido waaweyn iyo yaryara iyo niido balaas iyo caana golden iyo caana diyaara oo leh waaweyn iyo yaryar sidoo kale waxa kugu diyaara caanaha ciyaalka oo leh nafaqo aad u tayo sareysa sida caano nan 1 S26 1 iyo 2 iyo caanaha dadka waaweyn oo loogu talagalay oo leh nafaqo aad u tayo sareysa sida caano inshuur iyo cafayadii oo noocyo kala duwan leh sidoo kale waxa kugu diyaara waaheen supermarket adeega cosmetiga noocyadiisa kala duwan sida barfuunada oo aad u tayo sareeya shaambooyinka original noocyadooda kala duwan oo ay ka mid yihiin shaambada nafaqada timaha iyo shaambada qurxinta jirka shower jelada oo aad u tayo sareeya waxa kale oo kugu diyaara kareemada tinta oo ay ka mid yihiin kantu tancho iyo fatikada oo aad kaga reysanaysid agoolka timaha gala iyo go'itaanka tinta sidoo kale waaheen supermarket wuxuu ku diyaariyay saliida tinta waaheen pharmacy and supermarket wuxuu ku yaalaa magaalada Gaalkacyo agagaarka kadhadaha wixii faahfaahin oo intaas dheer kala xiriir lambarada shaashada ku qoran